dumarka koob iyo 10 baa loo qaybiyaa baa la yiraahdaa ildeer iyo lugdheer iyo gacandheer baa jirta ildeer taa ragga uu dumarka ugu daran wata suuqun taagan ee kabaha yimaada diraca yimaada ee marada timaada fadhiga yimaada waxaas haa marka waxa weeye taa aad kulantaan la sheekaysato dhibaatada leedahay waxa weeye wixii suuqiya loo dhan bay war haysaa oo wixii suuqiya loo dhan waa ildeer taas haa fadhiyada soo u dambeeya ee بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داود يا الملك استوى جوجتان وسلامتين جمعة وناكسن أو أما وحلنا هاي قلب جمعة وناكسن وأي أمد ودن فصح كتيران ما هذه هكذا كاميرمان ما هاد ميرو أو دوبا برنامج كان أيان أقوم هاد علينا يا وقت يسقالي ونسيي كلنتي وعن هدي أي تامر كوجور رئيس النصاب تفضلن وحنكعد سننا إن سبسكرايب إلا كشير سارتو مركب ما سنتهين هاي برنامج كمان ربنا سؤالها تدوينها لو ذاقنا وبرنامج aad u qiimo badan oo ku saabsan alaaba badana waxaan ka shaqeynaa arrimaha bulshada nolosha arrimaha qosaysa bulshada ladina su'aasha maanta aan dadweynaha la wadaagin waxa weey maxaa sababa burburka qoyska maxaga hooyada mise xaga aabaha ayadoo ay jiraan caruur fara badan oo ku dandaraysan laamiyada ama darbijiifyada xabagta caba ee maalin kasta aqoon la'aan iyo magaranaysa saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa hooyada haddii ay ilmaheeda kala tagaan iyo aabbaha iyo odaga haddaba su'aalahaas waxaan insha Allah la dhaxmari doonaa microphone annagoo khibradda iyo magaranaysaa kala wadaagayna dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa halka aan maanta idin kala soo hadlayna waa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku soo dhawow magacaaga ku bilaabay Cabdi Axmed Xasan أورلقي هذا كورنا برنامج بان كقادنا سؤالها نين برنامج كأدو حرم بعطاي ما أنتوا حرمنا إن تدوينها هلا وداقنا محاسبة بربر كقويسك محيط هاي دبات أنت لك باي الماء أو عروتها أي لبدا قفيس كدلان أي لكل مكران أيضا مركور للشعلية هيو هوتيل الله قطو منايا هذا أقول دمبين إن محكمة لو تاجين أيضا عروتين اللي إيجينين لبدا قفا يدني سنيان أرنك قبل محل نوقع قاعد ديك كرتاس وحن كاجا قاعد ديك كراسة بسم الله الرحمن الرحيم burburka qoyska waxa horta sababa waxa si fudud kugu soo gal si fudud buu kaga baxaa inankii inantii xasaawo dheer kama dhaxaynayee 2 saacadood ba ku heshiinayaan barasha ka ayaa u dhinayd garanaysaa laakiin inta badan sodohda iyo inanta saaxiibadeed ayaa ugu wacnaada nin Soomaali looma joojiyo bay oranaysaa saaxiibadeed sodohduna waxay la doonaysaa inankan mid ka muhiimsan kan aniga hayla soo marba oranaysa haddaad jeceshayn haygu soo dudin wax kale ma aha carruurtana dhibaatada gaadha waxa weeyaan had iyo jeer mar haddii ay kala tagaan wax barasho la'aan diin la'aan daryeel la'aan akhlaaqad xumo dad la dhaqmi waa intaas way ku dhacaan ilmaha hadhoona waxay sababaysaa ay macnaha dadkii carruurtii dad ixtiraami waayaan oo ay bulsho helaan oo bulsho xun ay noqdaan marka labada dhinac marka mas'uuliyadda yaa qaadanay ma hooyada xaggeeda siinaysa mise aabbihi baad siinaysaa marka burburka qoyskaadu mas'uuliyadda waxa qaadaya horta aabbaha mas'uula waa gartay ma garatay burburka yaa sababa marka burburka hadduu kari waayo gabadha iyo islaantan ku lamaan inuu burburaya qoysku marka waxa leedahay sodohda ayaa ka mas'uul noqonaysa sodohda ayuba ridi karta toosin kartana hadda jiraan naan reerkaaga hayso qoyskaas muu burbureen nin Soomaali ha u joojin bay uga bilaabaysaa marka waxaanu ka dhisbaa waa sodoh wuxuu ka dhacaana waa sodoh marka anigu ba sodoh baan leh waxaan saareynaa marka xagga dumarka inay burburka qoyska keenaan dabcan ayna ka fikirin dhibaatada carruurta ku imaan doonto yes aynka way waan ku adkaysanaya aad baa u mahadsantahay jawaabta wacan ee barnaamijka aad naga siisay wali waxaan ku guda jirnaa daawiyaal qaybaha hore ee barnaamijkeena yaa sababa yaa mas'uulka burburka qoyska dadweynahan microphone insha Allah la dhidinana fadlan ku soo dhawow channelkaas Qawdiin oo waxa ku xidhan 2 milyan oo qof oo ku daawan doonta dii la yiraahdo barnaamijkeena maanta aan su'aalaha ka weydiin doono waxa weeyaan yaa sababteeda leh mas'uuliyadeeda qaadaya familkan Soomaaliyeed ee maalin kasta maxkamadaha lagu kala furo carruurta ku baaba'da mas'uuliyadda ayaa qaadaya isleeda fikirkaaga adoo magacaagana ku bilaabay magacaygu waa Axmed Cabdi Xuseen aad iyo aad baan ugu dhawahay horta mas'uuliyadda carruurtan ku dayacan darbajiifka horta sababta koowaad waxa keenaysa guurkii adkaaday oo dhalinyartii ay qiimihii dalacmay marka waxa imanaysa xitaa halka carruur aan ku dhalan meher xalaal ah sharci darro ah
marka waxaad leedahay fikirkaaga carruurtan derbiyada jiiftay xabagta cabaysa mostly inay kuwa illegal sharci darra ha inay sharci darra ku dhasheen baa dhici karta wixii guriga qaali noqday sababta ha marka loo jibiyo dhalirta leh very good burburkan ka waran marka qoyska yaa qaadanaya labada hooyada iyo aabbaha waxa qaadaysa waliba aabbaha tan waxa galan dumarka aanu dhalish sii saarin ninka ayaa u sababaynaysa in aabbaha aad u saartay dambiga waxaan u saarayaa isagu horta isaga dumarku horta inaga aqliyan qaras sababta haduuna aqligiisa iska qaban xumaanta isaga carruurta dayacan isaga ka mas'uul noqonaya oo dhibaatada isaga la soconaysa oo dambi ku aanaysa waliba okay asaga haduu diyaar u yahay inuu freerkiisa dhaqdo gabadhuna diidanta in reerkii la dhaqo maxaa xal noqonaya gabadhu diidan tahay ilaa ninkii ragga qarash baa ka soo baxay muddo wax soo waday wax buu soo dhisay ninna dooni ma in familkiisa maarayacni ku baabi'iyo marka haddii hablihii marka mas'uuliyadda ma qaadan karaan maslada mise adugu eedda waxaad saaraysaa aabbayaasha mas'uuliyaddii horta labada qof horta waxay ku soo heshiiyaan markay soo guursadaan inay nolosha levelkooga wax kasta ku dhacdo hadday lacag yar haystaan hadday dan yar yihiin waa inay isku faraxsan yihiin laakiin horta dumarkii marka la yareego dumarkiina wax yar doonayaan lacag yar sarreyso heer saraa marka inankii baa hor yar dhici karta inuu baanugu yar sheekeeyo inantii markii dambe markaas halka burburkaas ku yarmanaya marka carruurta maxaa ku iman karaya haddii labada qof kala tagaan waxa ku iman kara saddeer dhaqaale la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo dawlad jufo marka dambe inuu xabagta cabbu meelaha gidarada fadhiyo noloshay ka maxaad kula talinaysaa dadka maanta maxkamadaha kiisaskooda yaallo oo furiin jiro ama yacni kala tegi raba maxaad u faraysaa dadkaas marka ay u sheegaysaa waxaan anu kula talin lahaa waa inay carruurtu waa qaali oo ubax soo koraya waa in la ilaashado oo si fiican loo barbaarsado odhan laanu marka carruurtiina badbaadiya aanu degay talaa waayo gabadha haddii la furo nin weyn mayso wiilkuna nin gabar weyn maayo meesha marka waxa ku baaba'aya 90% waxaad leedahay marka carruurtu waa ku baaba'aysa waa jiilkii noo soo koraya maasanta magacaaga waa maasantahay taakiyo soo dhawow channelkan Sakhawdiin oo in badan lagu xiran yahay bulshooyinka Soomaaliland waxaan rabnaa inaan ka hadalno waa arrimaha bulshada waxa soo batay dalkeena dadka familka burbursan oo carruurtii darbijiifkii baa soo badatay marka waxaan rabnaa dadkii inaan kaga digno maxaa sababi kara yaa qaadan kara mas'uuliyadda carruurta maxaa ku iman karaysa bismillaahi raxmaani raxiim waan soo dhaweynayaa horta barnaamijkan wax ku oolka macquulka in badan runtii ka guuxayay bulshooyinka reer Soomaaliland ama bulshada afka Soomaaliga ku hadasha burburka qoyska laba aynu qaybin karnaa mid waxa weeye aabba dayacay carruurtiisii aabba dayriyay carruurtiisii oo xilkii saarnaa runtii gudan waayey waajibaadkii saarnaa ka soo bixi waayey midna waxaynu odhan karnaa jiilkan hadda jooga daayartan iminka joogta dhallinyarada oo runtii markay dhisayaan guri ama qoys ay yeegleelayaan si yaroo fudud isku guursadaa si yaroo fududna u kala tagaa marka waxaan ku horeynayaa ta qoyska muxuu ahaaye dhisan aabbaha iyo hooyada ay carruurtu ka dhaxayso ayaan ka hadlayaa horta mas'uuliyaddu waxay saarantay ninka الرجال قوامون على النساء مسؤوليته waxay saaran mas'uuliyadda koobaad waxay saarantay ninka ninku marka waa inuu geed dheer iyo geed gaaban baa u koraa badbaadinta ubadkiisa iyo sida ubadkiisa uu muruq xoogiisa iyo dhididkiisa ba ugu maali lahaa taasi rag leedahay gabadhana wax looga baahan yahay in iyaduna muxuu ahaay barbaarinta ubadka iyo muxuu ahaay iyo horumarinta qoyskeeda iyo wixii muxuu ahaay xaq carruurteeda ay ugu leedahay in iyaduna hadhiya habeen aanay ka gaabinay runtii isku taxalluujiso si loo helo muxuu ahaay maadaama warshada wax soo saarku ay tahay hooyada lafdhabarta qarankuna ay tahay hooyaduna muxuu ahaayay ay mudan tahay had iyo jeer inay saaxadda keento dad macquul oo bulshadan tadawur horseeda marka qoyska wanaagsan wuxuu sababayaa ama qoyska wanaagsan wuxuu dalka iyo dadka horseedaya in la helo muxuu ahaayay carruur tayo leh oo lagu wiirsado oo muxuu ahaayay ifaaya laakiin se haddii aabbaha iyo hooyadu aanay arrinsan aabbaha iyo hooyadu haddaanay ka arrinsan ama aanay ka shawrin qacmaha iska qabsan xaaladaha qalafsan ee runtii ku gadaaman aabbuhuna hadduu iska qaylaa tago oo gurigiisa afarta habeenimo u yimaado islaantuna muxuu ahaayay ay dee carruurta la kacakufto mushkiladeeday leedahay marka iminka waxaa dhacday anigu waan u soo joogan goobjoog ka ahaa aabbo islaani odaygii iyo islaantii baa isku dhacay markaa suuqiisu iska galay isagu mas'uuliyaddu markaa waxay kortay islaantii markaa islaantu suuqa u fadhiisan jirtay carruurteeda dabadeed bacadkaasay u fadhiyi jirtay oo maca dugsiga hoose ka dhexe ka sare carruurteeda iyo jaamacaday dhigan jireen bacadkaasay u fadhiisan jirtay
wax yar bay iibin jirtay dee jaamacadeennuna maanta inta qiimahooda waad garanaysaa iskuullada qiimahooda waad garanaysaa malcaamadaha qiimahooda waad garanaysaa har iyo habeen waxay ay muxuu ahaaye islaantaa ku badnaa sidii dee carruurteeda ay ugu soo saari lahayd wax taas waxay dhashay markaa in uu aabbihii saaxadda ka baxo oo la waayaba maalin maalmaha ka mid ah inan yar il lagu dhiftay inankiisi yarabaa ishaa lagu dhiftay dabeeta saa la yidhi dee bal labadii reer baa markaa damcaynay isu yimaadaan gabadhii baa tiri gabadhii baa lagu yidhi reerkii orodeenaka reerkoodu yaad markaasay dee tiiraanyootay dabeeta markaa gabadhii waxay dabacday inay raggii u tagtay tiraado waa nigaa ka wakiila saa la yidhi naa ninkii dhalay orodoo noogu yaadh dee ninkii dhalay bay ka doontay muxuu ahaayey meel loogu tilmaamay oo dabeeto ay soo kaxaysa marka had iyo jeer waxaan leeyahay mas-uuliyaddu waxay saarantay ragga markaa raggu waxa weeye in ay dee carruurtooda mustaqbalkooda ilaaliyaan maxay tahay dhibaatada kaga imaan karaysa kala tagan carruurta maxay saameyn ku yeelanaysaa horta burbur markuu yimaado waxa weeye uu qoysku burburo waxa weeye carruurtii dee waxa weeye carruurtii waxay gelaysaa suuqa oo carruurtii mid waliba wuxuu noqonaya waxbarashadii faray ka qaadaya dee markay awooddii oo dhan ay ku soo rurto hooyadii ilmihii ma laga yaaba in xabaglayaal noqdaan waxa weeye xabaglayaal wax ka daran bay noqonayaan waxa weeye waxay noqonayaan kuwa habeenkii dadka baadhay noqonayaan ee waddooyinka u istaagaan ee booba dadkay noqonayaan waxay noqonayaan kuwa muxuu ahaayey dalkii ka haajiraba dalkayna ka socdaalaanay waddamo shisheeye u aqaltaagaan oo caqabadu soo jiidaan waalidkood ayaa imanaysa waxaa imanaysa xitaa laftigeeda in ay ku kacaan muxuu ahaayey tuugnimo waxay imanaysaa xitaa laftigeeda inay noqdaan dad mukhaadaraadka ku talac tegey oo waxyaabaha runtii bulshada ay muxuu ahaaye halista horseedi karaa ay bulshada ku soo hogaamiyaan ugu dambeyn maxaan u sheegaynaa dadkan mas-uuliyadda inay saaraan horta dhallinyaradana waxaan u sheegi lahaa mid baan ku soo kordhin lahaa iyagana waxa weeye inanka dhallinyaradii markuu imika dumarka 11 baa loo qaybiyaa baa la yidhaha ildheer iyo lugdheer iyo gacandheer baa jirta ildheertaa ragga uu dumarka ugu daran wata suuqun taagan ee kabaha yimaada diraca yimaada ee marada timaada fadhiga yimaada waxaasun haa markaa waxa weeye taa aad kulantaan aad la sheekaysato dhibaatada leedahay dee waxa weeye wixii suuqiya loo dhan bay war haysaa oo wixii suuqiya loo dhan waa ildheertaas haa fadhiyada soo u dambeeya ee yaalla way war haysaa dee qaarna waa kuwan asxaabtooda booqanaya imika waxa dhacday waayo taasay ugu dambaysay imika waxa dhacday inaan saaxiibnimaan raacay halkana u raacay furniture halkana waxa weeye inan baa la socotay anna inankaan la socday markaa waxay ku heshiiyeen maaha wax kale ayayna tii qabsatay halkiiba isku khilaafeen midna albaabkaasuu ka baxay midna albaabkaasay ka baxday dabadeeto kii meesha haystaan ku yidhi waa raadhe dee inaad ralaaba yaroo dadku iibsan karaan maad keentaan meesha waxaan qaaligaa maxaad u keentay dabeete wuxuu igu yidhi muxuu ahaayey waar labadii waabay sahlan yihiin maalin kasta 100 baa ku kala yaaca meesha muxuu ahaayey dee tog waliba taagtii buu rugmadaayay dee nin waliba waxa haystuun hala soo heshiiya marka hore markaad bulshada afka Soomaaliya ku hadasha siib ahaan waxaan u dirayaa qoysaska in muxuu ahaayey bal horta ay iyagu ay midoobaan oo ildheer baa noo sheegtay tan ku xigtana gacandheer baa jirta oo waxa jirta mid dagaal miidhana baa jirto oo gabigaaga station ku taagnaanayso waa gartay saddexaadna ildheer gacandheer lugdheer iyo mid aan guriga ugu imanayn oo ay u socoto